gubitaanka qaadkan ayaa waxaa sameeyey laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana goobjoog ka ahaa xafiiska ilaalinta qaranka iyadoo ay soo qabteen guutada afraad ee qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto Axmed Maxamed Cali Sootireedishe oo ay hoos tagto qaybta soo qabatay ayaa sheegay in bulshada laga badbaadiyay cudur ku faafi lahaa waxaan fulinay inaan soo qabanno qaadkan oo ka soo degayay dekedaha maxaan ku iraahdaa dabiiciga ah gobolka Shabeellada Dhexe jaadka la soo qabtay waxa lagu soo qabtay dad ganacsataa walow aanan dadka hayn ee ka carareen jaadkan waxa looga baqay in maxaan ku iraahdaa faafinta oo cudurka halista ah COVID-19 oo ah cudur aad u fida isla markaana degdeg ku fida taliyaha ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guud Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa u mahadceliyay qaybta 27aad isla markaasna tilmaamay in shacabka laga badbaadiyay halis cudur runtii marka u leexano qaad muxuu yahay xaqiiqadatan qaadku waxa waaye sidiisa dhanba caafimaad ma waa cudur waa laba cudur wuxuu ku yahay dhaqaalaha dalka ama dadka cunaya ayuu wuxuu ku yahay cudur caafimaad darrana muxuu ahay ninka la yiraahdo hadda inuusan lahayn cid cuni jirtana way taqaan cid cuntana way taqaan ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee qaranka Axmed Cabdullaahi Maxamed ayaa tilmaamay in qaadku uu si fudud u gudbiyo cudurka coronavirus awaamir ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya lagu joojiyay maadaama uu yahay sunta oo xambaari karo xanuunka oo coronavirus oo ma garanaysaa ayna sahlan tahay inuu si fudud u gudbiyo qofka maadaama gacmo kala duwan ay taabanayaan dawladda Soomaaliya ayaa waxay hore u joojisay inaan qaadka la keeni karin dalka isla markaasna ay sharci darro noqonayso soo gelintiisa